الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قولنا ما أنت وحن كنتوا نستاجد دونا نارتيف أي معلومة سيدة إيش خاتم الله قنصة يقدرين قوليه MBB ده هاي فرماجة هذا كور وحيري إن قبل يكون جواب قبل ويدي سؤال SSC أو لا يكون جواب كرو حسنا وقنصة فرماجنا إنه أفكيس السؤال وجوابه أيوة لويناتي نارتيف كان ما أنت دليه أنا رنت دي شيء أما هرتي أهو أما SSC أهو أما دارود أهو أما هوية أهو حقيقة كلمة داس أنا رنت كاغ شيء وأنا قبل ما ندرس ساقو سياسة بطلة ودرس ساق دونا سيدو كله وحدرس ساق دونا ويل يرى أو كوبي تمنشره والعياذ بالله أو قال كعيو لو كف صدي أو هدنا اللي قد لي أسرعنا حب بندك كهيا فافاسم أكور مرو وها عند والي معلومة عن ميديا هاي استسدي SSC خاتمه لا أقول صدي إلا يراهدو دارود كلا كلا الدول يراهدو فرماتش هو دارود ها SSC وحكو يري ولا لكم ما جوابي كرو سؤال شو كهر مريا نارتيف كهوية قضية ما كهر مريا فرماتش ما عندي سؤال لو يدينا يي لاس عنود اسكندر نجحتوه يحبله حتى كمان شرين وحنت لاس عنود أحد استاجه أما قضية صوماليات كهالله أما قضية غير SSC كهالله كمان شرين dadka SSC sheegtahay waagaas ma midaysnayn dadka SSC sheegtahay mid Hargeysa fadhiyay mid Garowe fadhiyay mid Khaatumo ahaa halkan qor la fadhiyay meesha la aabuhood lu fadhiyay waa jabhadeenay oo dagaalamayay mid Xamar buu fadhiyay dad muqaalif ka dhaxaysa ma ahayn mid kasta mabda gooniyo aaminsana farmaajo maalinta su'aasha la weydiiyay su'aasha hadduu yiraahdo SSC Khaatumo waxaan u aqoonsanahay maamul madax banaan waxay ka bedeli kadhay asaga inuu xudinta maahe waxay soo kordhin kadhay ma jirin hadduu yiraahdo Puntland bay ka tirsan tahayna waxyeello mooyee waxtar ma jirin hadduu yiraahdo Somaliland bay ka tirsan tahayna waxyeello mooyee waxtar ma jirin mar kastana wuxuu kelmaddaasi asaga dhibaataynaysi xataa isaaqiyo daraf iska badaal waxa su'aasha uu ka jawaabo waxa dhibaatada ugu horeysa uga imaanaysay ina kooraha fadhiya meesha la yiraahdo bahashi Hargeysa fadhiya iyo midka Puntland fadhiya intaas asaga lid ku noqonaysay oo jawaabi lahayd وانا ابتياشيسو ماشي انا كلش لاسعان ورير لاسعان رماجو هنا هسي كما تشرين واحد دقدقاقه اما ديال كو رويهي ميدين رادسه خليغا ما تشرين هذا كفرماجنا لاسعان ما خوريين ديغنا ما داديين SNM كما دول قادين ارغخيسه كما دول قادين waxa ma soo kordhiyeen bal asaga bay wax yeeli lahaydo abtigiisa fadhiya Hargeysa fadhiyana koor u horeeyo ayaa soo caay lahaa haduu dhaho Puntland ka santa hadduu dhaho Somaliland ka santa abtigiisa Garowe fadhiya ayaa soo caay lahaa hadduu dhaho SSC Khaatumo la yiraahdaa labadaas abtiyaash soo geesaa kala fadhiya ayaa soo caay lahaa intaan isaaq iyo cid kale loo gudbin marka taasi narrative kaasi ma aha mid maanta ku haboon ee farmaajo cudur lagu daaro ama loo yiraahdo wuxuu ka soo horjeestay qadiyada farmaajo waa nin mareexana qadiyada mareexan meesha ka joogayna waa ognahay gabdhihii dahabkooda noo soo gadaya mareexan aha farmaajo walaalihiis aha marna inaba yaan annaga dhexdeena nala ku bahalkaysan xasan oo madaxweyne 9 bilood oo dhiigu naga daadanayay oo aan dagaalamayna madfac lagu garaacay wuxuu lahaa kaalaya Ismaaciil Umar Galaani geenaya ee la tashada maamulkiina Somaliland la heshiiyay buna lahaa maxaa runta aad sheegna sidaba guuleystuhu waa kuma hadda koor baan idin sheegay guuleystuhu waa boqorka markaad guuleysatid qof kasta waa ku garab istaagaya waa ku afmacaynaya hadii ala ku rooyahay soo dhaw ku leey markaad guul dareysan tahay ama aad liidatid ama dhulka taalidna waa laga kala cararaya oo midkii marka loo arkayo inuu guuleystay yahay oo madficiisu shaqaynayo ayay la safarayaan waxaad wada ogtahay shalay madaxweyne xasan iyo xukuumaddiisa iyo ra'iisul wasaarihiisuba inay nagala safteen ninka la yiraahdo Musabbih oo ay lahaayeen nabadda juuca ka daaya la heshiiya maamulkina la heshiiya gobolada waqooyi maamulka Somaliland ha heshiiyaan bashana lahaay laakiin marka anagu guuleysanay dhiiga hornay daadinay dagaalanay awoodda isticmaashay qof marka awood leedahay dadkuna waa ku jecel yahay bini aadanka waa ku jecel yahay ilaahay waa ku jecel yahay qof wax kasta dunida waxa saaran ma ku jeclaanay marka daciif taho awood la ahayn
cidna kuma jecla tusaale waxaan ku siinayaa labada koox dhalatay ee walaalahaaya waa dhaqan aan Soomaali aan leenahay labadooda waxa la jecel yahay labada koox dhalatay adigu koox dhalatay kan wax haysta ee lacagta haysta ee awoodda leh ayaa jeceshahay inaad ku faantid soo dhaweysatid midka dayacan ee dhulka yaala ma jeclaanaysid waxna kuma tari karo sababtoo ah dan aad ka leedahay kuma fulin karo taa waxaan oga dhignayn magaalo madaxdeena xamar iyo xukuumadda ka jirtay markasta waxay isgarab istaagaysay ama la jirtay cidda awoodda leh ma ogtiin maanta haddii xamaas guulaysato oo Israa'iil ay hawada ka baxdo inuu Maraykanku soo dhaweynayo xamaas ma ogtiin inuu roog cas u fiirinayo ma ogtiin in Washington lagu casuumayo ma ogtiin laakiin inta ay tabaalaysan yihiin dhibaataysan yihiin iska daa Maraykan iyo Ameerika iyo Ruushia kuwa ayaga la dhashay ee dhiigay dhacaan kala wadaagay ee Carab ahaa baan hoos u fiirinay guulaystuhu hamoodin maanta ninku ku soo dhaweynaya markaa guulaysatay inuu jacayl ku qabo kii shalay ku buusayeen nacayb kuma qabin shalay Xamse iyo Xasan na buusayeen oo lahaayeen la heshiiye walaalihiin Somaliland nacayb kama aysan ahayn ana hadda oo daaray waa dhaqankeena Soomaaliga waa dhaqanka Soomaaliga waa dhaqanka dunida ka jira wey guulaystaha markasta awood leh oo la soo dhaweysta marka Xasan jacayl noo hayeen anaga guulaysanay dhiig daadinay naftayda u hurnay dhulkayga qabsanay waan ku qasban yahay inuu nala macaamilo sida dawladii caalamka cadaad ku saaraya caalamka waxa laga soo qaado iyo dawladnimada Soomaaliya la siiyana ma aha wax Xasan leeyahay waa wax lagu xisaabtamo halkaas maamul baa ka jira dad baa jooga maxaa siisay maxaa u haysaa leeyahay marka inuu maanta kula macaamilo oo deegaanadan masiirkooda madaxweyne firdhiyo hoos fariisto danta khasabtay laakiin haddii jiritaan waxa la yiraahdaa maalinta dhulka taalay wiilka ku garab istaagay maalintaasna waa ognahay farmaajo maanta la caayo leeyahay SSO maalin ka aamusay su'aal la weydiiyey maalintii madfac ku dhacayay xabadu ku socotay qoraal soo qoray oo lahaa dadka shacabka ah laga daayo dhibaatada halka madaxweynaha Xasan iska daayo madfac soo qoray oo lahaa aan la heshiisiyo musabix narrative-ka ah farmaajo SSC nacab iyo farmaajo rees u jawaab waayay intaasaan ka leeyahay sidaba guulaystuhu waa boqorka guul daraystuhuna waa bidda inta hal ogaado maanta shalay markii aan xabad ugu socto anagu aan liidanay irir Soomaali ahaayeen laan dheerayaal bay ahaayeen Cabdiqaadir Boos rag baa u sacbinayay Isaaq isnoodiisi garba Cabdiqaadir Boos maanta Isaaq waa caay sababtoo ah in saxwa tari karin boogi in la tiihin boogi inay baabeen boogi in awoodii lahaay anagu qaadanay boogi inuu anaga la soo dhaweysto dadka ku jida sababtoo ah waa dhigtay doontaasi waa dhigtay marka cid kasta ahata Soomaali ahata ajnabi ahata cid kasta maanta ku hoos timaado ku tiraahdo waa qurux badan tahay SSC khaatima lagu yiraahdo maamul baa tahay macnaheedu maaha jacayl uu ku jeclaaday shalay waa jirta dad ku jeclaanayo macnaheedu waxa weeye inuu danka leeyahay guulaysta tahay awooddaada uu qiimeeyay arkayna inaad super power tahay aan la xaqiri karin farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne aan ku jecelnahay madaxweynahaygii baa tahay SSCna waa gurigaagii waa midka dhalinyaradii reerkaaga ahayd iyo gabdhahaaguba ay dhiig u shubayeen thank you baan ku leeyahay narrative-kaas inta ku dilayaa daarood ma aha wax laga dhex qaraabto Cabdiqaadir Boos fariintaaga gaarsii jacaylka uu maanta ay qabo waa mid aan u keensaday keligii ma aha dunida dhan maanta jacayl shalay in nacdayd set qodobkaas halkaas ku xiran qodobka la dul istaagay waxa weeye magaal Puntland wiilka yarka ayaa hawshiisa dib baan ku dhigaya Puntland doorashooyinkii iyo adiyaalkii waxa ku soo foole doorasho la gali doonaa wan ma vooda sida madaxweynuhu cadeeyay xukuumaddu cadeysay wiilkii yarka ahaa dayaxdal nuurshe saddex habeen wuxuu soo gelinayay magaalada la Garowe hoobiyaal lagu duqeeyo oo ah kuwii Boosaaso lagu duqeeyay waxa uu siinayaa taatikooyin iyo dhiirigelin siinayaa Atosholey iyo rag leh oo leeyahay ana ka aqaan ninkaan go'aan kama soo laabto hoobiyaha u rakiba hoobiyaha maxaa sameeynaa marka shalay waxaad ogtiin Boosaaso markay xukuumadii iyo ciidankii isagu watay ay isqabteen in diyaano markii xabad lagu ridaba wuxuu ka duqeynayay niyo Boosaaso uu duqeynayay iyo rafi raaxu duqeynay oo caruurta ku leeynay
هذا وحو تاغيه مركا haddii aad rabtaan awood aad dawladda kaga hortagna ma hayno garow waa la fariisanayaa hoobiyaha loo rakibaya xabad hadduu dani kugu soo rido shacabka ka jaraysa sidii boosaas oo kale markaasuu dani ku khasbanaanaya inuu xabad joojiyo markii shacabku qayliyaan waa waray walaalaaya dhiigay dhaawac is dhaafo wax garad ku qayliyaan shacabkii baa la xasuuqaya la yiraahdo markaasuu dani joojinaya xabadda sidaydii oo kale tabtaas kaartaas u dhisaya oo u hirgashay oo uu ku aruurinayaa atoosh hooleeyay dad aan garow iyo rajo ka qabin ayuu hoobiyaal hubkan ayagu way haysteen laakiin hoobiyaasha ka dhimana ayagu reera ma ahayn nimankan garow degan ma ahayn niman hoobiyo ugu talagalay inay shacabku duqeeyaan laakiin falsafadan dayaxdal uu shaa'ibiyay suuqana galiyay haddana hoobiyaashiina wuxuu ugu keenay garow waxaan arkay maanta boqor burhaan boqor muuse oo garow yimid xogta u yimid xog badan kama hayo walow suldaan garaas soo dhaweeyay oo uusan soo dhaweyn islaamkii meeshaan matoobada ku rogi jiray oo la oran jiray islaan ciise islaan axmed ma soo dhaweyn laakiin suldaanka soo dhaweeyay marka ma wuxuu u yimid inuu wiilkiisa yarkaa ee la yiraahdo dayaxdan luurshe inuu dhaho maandhow boosaa shalay hoobiyahan ku gubtay jooji garow ha u gubin hoobiyaashii inuu ka qaado u yimid ma shir kale u yimid dib baan ka soo falaqayn doonaa insha allah reer garowna dantooda inay gartaan waa rajaynaya oo iska qabtaan calool shaqaystayaasha wignerka ah ee raba inay shacabka dhiigooda ka ganacsadaan qodobkaasna halkaasaan kaga tegay qodobka saddexaad abdul istaag waxa weeye gaalkacyo waxaa lagu kufsaday in diin cinda allah islaam a'uudu billahi minash shaytaan rajiim waxa afkaygu soo marin karaa nin baa la kufsaday ma aqran wiil yara oo 12 sano jiray ayaa la kufsaday oo haddana la dilay waa u dhintay xalaal soo helay meel kaam ah oo warshad galay meel yahdo oo dhinaca koonfurta iyo waqooyi soo galaan oo kale aagaas kaam ku yaala ayaa wiilka lagu kufsaday waa la soo qabtay 14 nin ayaa la soo qabtay way ka badnaa markii hore sodomeey ahaan dadka la soo qabtay oo kaamka laga soo qabtay laakiin dad tuhuma galeen oo hadii ay cadaymo tuhuma loo helay iyo dad si fiican looga shakiyay 14 ayaa lagu reebay intii kale wala sii daayay wiilka waxa laga qaaday dhiicaano ama laab saaw taqaanaanba waa laabkaasi waa waagi caashay oo kufsan jiray sidoo loo helay nimankii kufsaday dhiicaan baa laga qaaday ayagana dhiicaan baa laga qaaday baaritaan baa socda wiilkaasina cadaalad buu helayaa xukuumadda Puntland si weyn ayay gacanta ugu haysaa 14 kan wiilkaas wuxuu ka soo jeedaa beesa jareerweyne 14 kan loo qabtay ee hadda xiran iyo sodomeey ahaayeen kulligood waxay ahaayeen isla beesa jareerweyne ahaayeen oo kaamkaas kaam barakacayaala dad ku nool bay ahaayeen wixii sidoo ka dhacay laakiin 14 kaas hadda la hayaa oo laab laga qaaday oo qaybtood waalidka wiilku dhalay cadeeyeen in dhowr jeer u dhaarteen wiilka yarka dabagal lagu hayay oo adoo cadeymo waalidku keenan mushak iyo baa lagu soo qabtay inta badan dhiicanaas laga qaaday dhiicanaas laabkaana ayaa laga warsugayaa Puntland waxa kaliyo lagu rajaweeyaa waxay tahay oo 100% ah Puntland Soomaaliya waa meesha kaliyo laab leh oo dhiicanada lagu qaado oo isbitaalkeedu u qalabaysan yahay oo biri ama saad dambe ay soo bixi karaan laabka dhiicanadaas xogaha iyo macluumaadka laga helo marka wiilkaas waxa leeyahay cadaalad xagga Allah taala cadaalad Puntland baa looga baahan yahay cadaalad waxa looga baahan yahay deegaanka galka looga baahan yahay waana 100% waa helayaa dadkaasina waa la hayaa dadka inta badan shakiga balada dhaliyay waa la hayaa wiilkaas wuxuu ahaa bees jarweyne 14 loo hayana waa bees jarweyne kaamku wuxuu ku yaalaa washid galay meel u dhow la yiraahdo magaceedu waa ilaawe buu ku yaalaa kaamkaasi waa kaam barakacayaal buu kiiskaas ka dhacay barakacayaashii isla dhexdooduna hawshu ka dhacday sida ayaga laftooda cadeeyeen oo dadka inta badan la soo qabtay waxa gacanta ku wada fiiqay dadkii isla wiilka familkiisi iyo kaamka ku noolaa hawshaasina cadaaladeedu way socotaa laabkeedii iyo waxa dhan waa loo diray dhaqaatiir baa gacanta ku haysa amnigii baa gacanta ku haya wiilka ka Allah u naxariistaan leenahay dadkii ka baxayna waa u tacsiinay waxaan leeyahay saqiir aakhir Allah idin kaga dhigo idinkana samir iimaan Allah idin ka siiyo waa rajaynayna cadaalad heshaan cadaalad waa fiina heshaan ilaahay agtiisa cadaalad taalaay qoomkan arinta noocan waxaan aad ka waqti ugu galiyay oo soo qaatay waxa weeye waxaan arkay qolihii reer abaarso oo leh gaalkacyo labadii gediba galmudug iyo Puntland ba ku caayaya wiil la kufsaday iyo maqnuudnimo ku caayaya baan arkayay taas ay u kaliftay inaan xogta resultiga raadiyo cid wiilku ahaa inaan qabiilkiisa wiil yar dhalinyaraayo hadii ay gurayay Puntland meel kamid ku nool ama galmudug ku nool ama arki Soomaaliyeed ku nool inaan qabiilkiisa sheego reer hebel buu ahaa taas ay u kalifaysa inaan ka hortago war xumada ay la taagan yihiin reer abaarso sawir bay soo qaateen oo ay leeyihiin sawirkan waa kuwa nimankii wiilka qabsaday ay leeyihiin sawirku waa midkan
وانا لو كن يكوي لا تنكي لو كن يكوي لا تنكي ويه وارجعيسو لو قبتay muqdisho ayay sawirka soo qatay leeyihiin dadkani waa jileec oo ma aha jeer ma marka sawirkiina waa kaas ana ka daba tagay meesha waxa fadhida sirdoon security fadhiya meesha ka daba galaan meel kasto ay galaan reer abaarso nin keeni kara halkan fadhiya aad baa idin salaam inta ku soo kobay quna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh ciao ciao